waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a fal argagax leh oo hargeysa ka dhacay ina la afduubtay oo 27 habeen gurigooda ka maqan taasoo la sheegay in xamar loo tahriibiyey kadibna halkaa lagu qashay keliyaheedii iyo beerkiina la iibiyey iyo dhinaca kale dembiilayaashii falka ku lug lahaa oo 5 nin oo hadda la qabtay xabsigana ku jira iyo eheladii iyo qaraabadii iyo shacab gadoodsan oo caawa mudaharaad ballaadhan ka dhigay xaafadda maxamed mooge iyo dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka dowladda fadhiidka ee soomaaliya oo hadda lagu helay caddayn rasmiya shirkadda hawada ka shaqaysata ee nefbas la yidhaahdo oo ay u xil saartay inay u soo ururiso dakhliga hawada sare ee diyaaradaha isticmaala markaasi hawada jamhuuriyadda somalilan kaasoo sanadkii ah in ka badan 35 milyan oo dollar kuna shubto account xasan sheekh samaystay falkaasi oo ah tuuganimo badheedh ah iyo markaasi kaasoo kasoo horjeeda sharciga ee kaawo iyo heshiiskii ay soomaaliya iyo somalilan galeen dhinaca dakhliga hawada oo soomaaliya hadda u badheedhay in ay burburiso iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka khubarada siyaasadda caalamka iyo reer galbeedka oo sheegay in falalka siyaasadda guracan ee dowladda fadhiidka ee soomaaliya wado iyo weerarka ay ku soo qaaday somalilan ay imika albaabada u furtay soona dedejisay in dowladaha caalamku iyo ururada caalamigu mar labaad ay aqoonsan doonaan jamhuuriyadda somalilan iyo aqoonsigii somalilan oo hadda soo degdegay oo waqtigii loogu talagalay ama la filayeyba kasoo horumaray qodobada iyo qodobo kale ayaan kasoo qaadanaynaa barnaamijka kusoo dhowaada waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka ee magaalada hargeysa waxaa caawa ka dhacay mudaharaad ballaadhan iyo isku soo bax ay sameeyeen shicib gadoodsan kuwaasi oo iskugu soo baxay xaafadda maxamed mooge waxaana ay dadka shacabka ay ka gadoodeen fal argagax leh oo markaa hargeysa ka dhacay inan la afduubtay oo 27 habeen in ka badan gurigoodii ka maqnayd taasi oo la sheegay markii dambe in xamar loo tahriibiyey wararka qaarkoodna ay sheegeen markaa in gabadhaasi keliyaheedii iyo beerkii lagala baxay oo markaa la iibiyey haddaba dembiilayaashii falkaasi ku lug lahaa ayaa la sheegay in ay markaa laamaha ammaanka jamhuuriyadda somalilan gacanta kusoo dhigeen oo hadda ay xabsiga ku jiraan 5 nin ayaana markaasi la sheegay hadda in loo hayo haddaba dadka shacabka gadoodsan iyo eheladii gabadha ama inantaasi la afduubtay ama moogtay dee shirqoolka lagu kaxaystay oo inantaasoo la yidhaha mabsuud cabdi ismaaciil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in markaa arrinkani uu yahay markaa horta fal ay sameeyeen 5 nin oo isku qabiil ah ama isku beel ah oo marka ay farta ku fiiqeen inay yihiin beesha habar yoonis bay yidhaahdeen kadibna ay sheegeen markaa laamaha ammaankana uga mahad celiyeen tallaabaday qaadeen iyo xadhigga la soo xidhay laakiinse oday dhaqameedyada ayaa markaasi hadda waxay isku dayayeen in la dambabase bay yidhaahdeen oo arrinka kiiska aan dacwad lagu qaadin nimankaasi oo arrinka si hoose loo dhammeeyo haddaba waalidka dhalay inantaasi aabbihii iyo hooyadii ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay markaasi ugu baaqeen xukuumadda somalilan in sharciga loo mariyo nimanka oo loo xukumo wuxuu sharcigu ka qabo oo aanay iyagu cafinayn oo talabaad hooyada dhashay inantaasi ayaa iyadoo ka hor ooyeysa kamaradaha moogtay laga arkaya tviyada iyadoo markaa warbaahinta ka hor ooyeysa codsi dheerna markaasi oo runtii oohinta iyo moogtay hadalkeeduna qalbiga dad badan oo dadka naxariista leh ay aada u damaqday moogtahay hooyadaasi ooyeysay halkaa ka barooratay waxaanay ugu baaqday xukuumadda somalilan in nimankaasi sharciga loo mariyo oo ay ama inanteedii oo nool ay keenaan haddii ay markaasi meeshii ku og yihiin iyo wixii ku dhacay na ay sheegaan haddii ay la waayo haddii ay dhimaatayna de markaa wuxuu sharcigu ka qabo loo fuliyo oo la xukumo ayay tiri markaa hooyadaasi oo warbaahinta la hadlaysay iyo aabbihii dhalay inanta mabsuud cabdi ismaaciil waxaana arrinkani la sheegay wararka qaarkood in gabadhan markaa shaqa lagu siinaya waxyaaba noocaas lagu kaxeeyey kadibna xamar la geeyey markaa kooxo qowleysata oo isku xidhan ayaa la sheegay markaa inantaasi sidaa in ay ku gacan gashay inkasta oo waalidka dhalay inanta hooyadii iyo aabbuhu ay yidhaahdeen
inanteedii in la qashay dayn dhimatay annaguma hubno ee nimankan ha sheegaan nimankii lasoo xidhay oo caddayma lagu hayo oo la tix raacay oo xitaa warqad immigration ay sameeyeen la hayo ayay markaa iyaga laga rabaa bay idhahdeen inanteena nooshahay iyo inay dhimatay meeshay ku ogyihiin in sheegaan. Dhinaca kale dowladda fadhiidka Soomaaliya ayaa hadda lagu helay caddayn rasmiya. Shirkadda hawada ka shaqaysata oo la yidhaahdo Nefbas ayaa la sheegay in ay ku wareejisay maamulkii hawada Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan xagga dakhli soo ururinta. Waxaana ay markaasi heshiis kula gashay dowladda fadhiidka Soomaaliya shirkadda Nefbas la yidhaahdo in dhammaan diyaaradaha hawada Jamhuuriyadda Somaliland isticmaalay in la soo ururiyo lacagtaasi oo $35 milyan sanadkii noqonaysa. Shirkaddan ayaanay kula heshiisay dowladda fadhiidka Soomaaliya in markaa dakhliga ay soo ururinayso ay iyadu qaadato commission ahaan ama fee ah 40% dakhliga soo ururisay. Dakhliga ay soo ururisay haddii 30 milyan uu noqdo markaa 12 milyan bay qaadanaysaa shirkadda Nefbas. 18 milyan wuxuu kula heshiiyey baa la yidhi Xasan Sheekh Maxamuud in account uu samaystay oo weliba Dubai uu ka samaystay halkaa lacagtaasi loogu shubo. Tan ayaa ah haddaba tuuganimo badheedh ah iyo markaa sharcigii caalamiga oo lagu tuntay. Tusaale ahaan Somaliland iyo Soomaaliya heshiis horta wada galeen xagga hawada ah iyo dakhliga soo ururinta iyo dakhli qaybsashada. Horta heshiiskii ay wada galeen ayaa halkaas kaga baxday Soomaaliya oo weliba si cado badheedho tuuganimo uga baxday lacagtiina ay jeebka ku wada shubatay. Waa qodobka labaad heshiiska caalamiga ah ama hay'adda qaramada midoobay ee ICAO sharciyadii u yaalay ayay gebi ahaanba markaa dowladdaasi fadhiidkii ku tumatay oo hadda markaasi ay u badheedhay sharciyadii caalamiga ay jebiso. Waxaana hadda la sheegayaa haddaba tillaabooyinka ay qaaday dowladda fadhiidka Soomaaliya oo la helay warqadihii ay ku saxeexday ee ay markaa shirkadda ku amraysay oo kuwa halkaa idinka muuqda ah oo mugtahay amarka ku siisay in lacagtaasi ay soo ururisay ama ay wakiil ka tahay inay dakhligii xagga hawada sare gaar ahaan dee Jamhuuriyadda Somaliland diyaaradaha dulmara shirkaddaasi soo ururiso. Kaasi oo aynu ognahay diyaaradaha mugtahay strategically marka la sheegayo inta badan hawada haddii moogtahay Soomaalida marka la sheego Somaliland iyo Soomaaliya inta ugu badan waxay duulimaadyadu maraan waa hawada Somaliland oo istaraatiijiga. Somaliland hawadeeda iyo baddeeduba waa very istaraatiijig oo moogtahay meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan caalamka ee socdaan. Dhinaca hawada Soomaaliya inta badan diyaaraduhu baba maraanba ee ganacsiga caalamka iskaga gooshaya ee markaasi tegaya bariga dhexe ilaa iyo markaa dhinacan kale Afrika waxa uu diyaaraduhu dul maraan inta badan waa hawada Jamhuuriyadda Somaliland. lacagtii haddaba waxaynu ognahay dhinaca kale maamulka hawada inay Jamhuuriyadda Somaliland la wareegtay bishii February ee sanadka 2024 kadib markii dagaalkii hawada u dhacay Soomaaliya iyo Somaliland kaasoo Somaliland ay maamulkii xagga hawada iyo diyaaradaha la kala socodsiinayay ay la wareegtay. laakiin haddaba lacagihii sidii loo charge gareynayay markaasi diyaaradii isticmaalayay dakhliga looga soo ururinayay ayay markaasi Soomaaliya samaysatay shirkaddan ay heshiis la gashay ku tiri lacagaha diyaaradaha hawada Somaliland maray jeebka igu soo shuba. Tan ayaana waxay noqonaysaa faldabiyeed weyn iyo tuuganimo badheedh oo dowladda fadhiidka Soomaaliya ay u badheedhay in dakhligii Somaliland sidaasi ay ku xaddo waana xatooyo caalamiya. falalkan guracan ee dowladda fadhiidka Soomaaliya hadda ay weerarada ku soo qaaday Somaliland kaasi oo shirkadihii iyo hay'adihii caalamiga ah ka shaqeynayay dhammaantood ay faragelin weyn ku hayso oo weeraradan aan loo meeldayin ee ay markaasi naflacaaridka ah ee ay Somaliland kusoo faragelinayso ayaa waxa ay sheegayaan dadka u hoggaansan siyaasadda caalamka gaar ahaan khubarada xagga siyaasadda ee wadamada reer galbeedka. Ninka la yiraahdo David Green ayaa soo qoray inay tani markaasi seedayso ama soo dedejinayso aqoonsigii Jamhuuriyadda Somaliland oo hadda aanay markaasi muranba ku jirin in wadamada caalamku ay toos u arkaan in Somaliland ay xaq u leedahay in markaa la aqoonsado oo mar labaad aqoonsi buuxa la siiyo. waayo falalka ay samaynaysa Soomaaliya dee guracaan waxay taasi muujinaysaa inay doonayso xoog iyo markaa adoonsi inay ku haysato iyo jujuub Somaliland bay doonaysaa iyadoo markaasi Somaliland hadda ay garwaaqsadeen wadamadii caalamku in ay xaq ku taagan tahay oo wadan jira ay tahay oo la dulmiyayo xaqiisiina markaasi ay dhacayaan ku xaq qowleysata ah oo iska dhex fadhiya markaasi guriyo dhexdood oo laba guri moogtay waxay maamulaanba aanay gaadhin.